Waa xilli aan ku suganahay degmada Buur-Hakaba ee gobolka Bay. Degmada Buur-Hakaba ayaa beryahani waxaa laga cabanayay kuleyl iyo oon. Shacabka ku nool degmada Buur-Hakaba ayaa ku wada faraxsan inay helaan roobkan oo kale. Warbiyoodyadii oo dhan ayaa wada buuxsamay. Dhammaan goobaha ganacsiga iyo goobaha waxbarashada ayaa waxaa xakiyay roob aad u weyn. Aniguse waxaan ku suganahay gurigayga, waayo waan aadi waayay inaan aado goobtayda ganacsiga. Roobkani ayaa waxa uu ku ballaartay dhammaan gobollada iyo tuulooyinka ku hareeraysan degmada Buur-Hakaba ee gobolka Bay. Inkastoo ay beryahani ka cabanayeen bus iyo oon dartii ayaa dhammaan warooyinkii oo dhan wada buuxsamay. Qaar ka mid ah dadweynaha ku nool degmada Buur-Hakaba ayaa ku wada faraxsan in ay helaan roobkan aadka u weyn. Sidoo kale waxaa ka hadlay guddoomiyaha degmada Buur-Hakaba ee gobolka Bay, Mudane Maxamuud Nuur Cali Yarow. Guddoomiyaha ayaa sheegay in ay farxad u tahay in la helo biyo shacabkiisa ku nool degmada Buur-Hakaba ayaa xilliyada